maxaa loo yaqaanaa nouns, maxay yihiin count and non-count nouns, si aad u garato videogan dhammayso. Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada xalqadeen saddexaad ee English tutorial. Maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc kale muhiim ah, waxaana waaye the nouns. Sida ognahay noun waxaa laga wadaa magacyaal. Nounsiga ama magacyaalada waxaa waaye kelimadaha ugu badan oo ku jiraan luqad kasta oo ka mid yahay Englishka. Marka kelimadaha u badan Englishka waxaa waaye nouns. Casharkan maanta waxaa ku bilaabanaa anagoo fiirinayna waxaa laga wado kelimada noun. Sida inta noogu sheegay, a noun waxaa waaye a word, waxaa kelimad that names something. Waa kelimad wax lagu magacaabo. For example, kan waxaa la dhahaa a marker. Marka a marker waa magaca qalabkan lagu magacaabo. Nounsigana waa sidaas oo kale, waa kelimad oo wax lagu magacaabo. Nounsiga waxay u kala baxaan afarta waxaa waaye number 1 a person, qof. Nounku wuxuu noqon karaa qof. For example, a criminal, dembiile. Number 2 wuxuu noqon karaa a place, meel uu noqon karaa. For example, jail waxaa waaye meel. Number 3 a thing wuxuu noqon karaa alaab. For example, knife, midida oo kale waa alaab, waxaana waaye noun. Midda dambeysa idea, an idea waxaana fikrad. For example, waxaa waaye justice, cadaaladda. Marka gebigooda waxaa waaye nouns. Marka nounka waxaa waaye kelimad oo wax lagu magacaabo, wuxuuna u kala baxaa 4 qaybood. Qaybta koowaad waxaa waaye a person, a criminal, ama wuxuu noqon karaa a doctor, a nurse. Sidoo kale a place, meel, wuxuu noqon karaa jail, wuxuu noqon karaa airport, wuxuu noqon karaa hospital. Midda saddexaad a thing, alaab, wuxuu noqon karaa marker, wuxuu noqon karaa knife, wuxuu noqon karaa shirt. Midda afraad an idea, wuxuu noqon karaa justice, cadaaladda, wuxuu noqon karaa freedom, xorriyadda.